barnaamijkan caafimaad oo aan bulshada xaafadooda aan ugu qabanno waxay nagu dhalatay muddo ku dhawaad sanad ah 8 bil ka hor waxaan bilaawnay 1 January bilowgii sanadkan hadda aan ku jirno ayaan hawshan bilaawnay ilaa haddana waa wadnaa shacabka waan u adeegnaa anagoo xaafadooda ugu tagayno howlaha caafimaad ee aasaasiga ah aan u qabanno qodob waxyaabo fara badan ay kamid tahay dhaymada gudninka caruurta la talinta caafimaadka ee la xiriirada dadka sokorta qaba iyo dadka dhiig karka qaba iyo qaybo badan oo caafimaadka oo waliba qaybo gargaarka ay ku jiraan bukaanada intii hadda hawsha aad wadeen bukaanada aad tusaale caawisan oo kale sida aad isku heshaan bukaanada ama ugu tagtaan ama idin kusoo gaaraan xogteeda faahfaahin dadka badanaaba aan u shaqeyno waxaan isku helnaa waxay nagala soo xiriiraan qaybta social media waxaan dhignaa bog Facebook aan ku leenahay ayaan dhignaa meesha ay dadka naga soo raacaan anagoo waliba nambardeena iyo contacteedeena dhigayna ama post ahaan u dhigayna waxay noo sheegaan xaaladaha caafimaad iyo xanuunka waxa ay noo sheegaan kadibna wixii anagu ku salaysan shaqada aan dadka u qabanno bulshada hadii ay tahay oo kale haduu qofku u baahan yahay oo kale dhaymo ama haduu u baahan yahay qalinka nooc yaqaan debridement oo ah wasakh saaridda meesha dhaawac oo kale hadii ay u baahan yihiin gudninka caruurta ilmaha oo kale hadii ay u baahan yihiin la talin caafimaad oo dhanka sokorta la xiriira iyo dhanka dhiig karka oo kale iyo wixii la mid ah waxyaabaha caafimaadka bulshada aan u qabanno hadii ay soo hoosgalayeen criteria ahaan ayaan dadkii hadii suuragal ay tahay markaasaan xaafadda ugu tagnaa waxyaabaha baahiyaha caafimaad ay u baahan yihiin ayaan xaafadooda ugu qabanaa kooxdiina dhaqaatiirta ah sida isku hesheen intaas xirfadood oo aad sheegteen oo ama gudniinka ama dhaymada ama shaqooyinka kale caafimaad aad bixisay sideen ugu dhalatay teamkiina isku hesheen marka uu rees fikradda waxay nagu dhalatay markaan aragnay dad fara badan oo aad u dhibaataysan oo waliba dan yar ah oo la dhiban xanuunadan sokorta iyo dhiig karka waliba dalkeena sanadihii u dambeeyay aad ugu soo batay markaan aragnay ay barnaamijkan ugu dhalatay sidaan ognahay isbitaalada private ee dalkeena runtii aad ay qaali u yihiin oo dadkana kama bixi karaan qofkana maalin walba inuu dhaymo u tago isbitaal ka fog xaafadiisa runtii aad bay ugu adkaatay markaan aragnay baahida caafimaad dalka in aad u soo badatay duruuftana dalka ay ka jirto ayaan aniga iyo dhaqaatiir kale oo hadda isla wada shaqeyno oo ururkan ka wada tirsannahay waxaan ugu dhalatay balka waran waxaan is wareysanay hadii dadka xaafadoodan ugu tagno oo waliba adeegaas oo dhameystiran maadaama aan nahay dhaqaatiirtii xirfadaas lahayd dalkooda iyo dadkooda u soo bartay xirfadani waxaan is weydiin hadda xaafadda ugu tagno aan aqoon balka waran kadib waan isku raacnay hawshin oo gudo galnay bilowgii sanadka alxamdulillah hadda meel fiican inoo maraysa hadda adeegyada aan bixino dhan xaafadaha ayaan bukaanada ugu tagnaa alxamdulillah ilaa hadda boqolaal bukaano aan ku guuleysanay oo Allah subhanahu wa ta'ala gacanteena suuragelay inay ku bogsadaan ayaa jirta qaarna ilaa hadda ayaan hawsha u sii wadnaa maalin walba ayaan gurigooda dhaymo ugu tagnaa qaal maalin dhaafan ugu tagnaa gudninka caruurta kale maalinkii ugu yartahay 3-4 wixii nasooc nala soo xiriir ayaa gudninka xaafadooda lagu sameeyo alxamdulillah adiga hawshii aan ku fikirina bulshada u qabanno si qurux badan u socota waa inay noo hirgashay tusaale daawada iyo bukaanka iyo tijaabada ama dhiigka qaadis oo kale markay noqotay adeegyada sida u sameeysan isbitaalada iyo markii bukaanka aan wareysano oo xaaladiis aan qiimeeyno waayo badan hadda bukaanada aan wax u qaban waxay u badan yihiin bukaanada dhaawacyada kala duwan waliba qaasatan dadka sokorta qaba ee dhaawacyada la soo dirsa oo qof markay sokor ku dhacdo badanaa xubnaha hoose ee lugaha dareemaha ka dhimanaya oo qofka markuu soo dhacay in dhaawac soo gaaray in kale ma oga marka dhaawac haduusan qofka sokortiisa usna xakameyn dhaawaci weynaan marka dadka u badan hadda aan aragno wadada sokorta qaba waaya hadii marka qofka anaga dhaqaatiirna waa nahay kaliya ma nihiin dad kaliya shaqadaasi kaliya qabta ma nihiin bukaanka waa wareysanaa history ka qaadna examination u sameeyna hadaan aragno bukaanka infectionkiisa ko inuu xoogan yahay waxaan ka qaadnaa dhiig loo yaqaan CBC hadii ay nolol muuqdo inuu cudur kala qabo sida malaria typhoid iyo wixii lamida iyo xanuuno kale waxaan ka qaadnaa dhiig waxaan u dirnaa isbitaallo waliba xitaa isbitaalada waan la heshiisaan la soo galnay waxaan dhanay dadka anaga u shaqeynaa dad dan yar ah percentage-ka lacagaha shacabka kale ugu shaqeyn xitaa lacag ka yar ay baarista ugu sameeyaan anaga dhiig gacantan ugu qaadno isbitaaladan u geynaa jawaabtana waa loo soo celiyaa waliba lacag yar looga shaqeeyaa oo ka yar dadka bulshada kale lacagaha looga shaqeeyo qalabka aad adeegsataan oo kale marka aad rabtaan in macaamiisha dadka bukaanada u adeegtaan maxaa kamid ah qalabyadan adeegsano waxaa kamid ah qalabyada kala duwan ee bukaanada qof walba dhaymo loo sameeyay ama barnaamij loo sameeyay qalabyada qalimka lagu sameeyo hadoo kale anaan kula hadlayo kale waxaan wataa boorsada watan oo bukaanka qalinka lagu sameeyay qalinku ma ahan qalin in loo sameeyay ma ahan bukaan marka dhaymo loo sameeyay waxa qasab ah in dhakhtarka dhaymada u sameeyo inuu haysto gloves sterile
inuu haysto gloves sterile marka la macnaha waxa ka wada gloves qalimada lagu sameeyo inuu haysto sidoo kale inuu haysto gauze oo faashadii oo nadiif sterile ah waxa kale oo kamid inuu haysto iodine inuu haysto sharoota iyo bandage wixii dhan waa kuwan intuu nagu wada jiraan gloves sterile waa kan sidoo kale xitaa bukaanada hadii bukaanka marka qaar xitaa waxaan sameeynaa stabilization oo sameeynaa hadii bukaanka kale for example oo kale bukaanada kale markii gudniinka aan sameeyno kale daawadana kale waxa waa lidocaine waay soo jeedaan waxa lagu talagalay local anesthesia waay meesha bukaanka cunug marka la gudaa qaybta hoose ayaa lagu kaabeeyaa so cannulus waa kuwane dhamaan boosterigi oo skinta wax lagu qalay so qalbiyada inta nagu wada jiraan so dhakhtarka marka wuxuu qaadanayaa boorsidiisa oo dhameystiran ayuu qaadanaya wuxuu u tagayaa bukaankii wuxuu u soo sameeyaa dhaymo iyo department wixii loo baahan hadii gudniin ay tahay qalabka qaliinka lagu sameeyo xitaa waa kuwan iyagoo dhameystiran inta nagu jiraan hada kan sterile ma ahan waa asigoo sterile ayaa jiro hada kan wali sterile lagu sameeyo soo wixii qalabka dhan way dhameystiran yihiin bukaanka waxa loo qabanaya adeeg oo 100% oo well approved oo la isku haleeyo reliable